بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku dhex jirnay inoo soo socday soo taxnaa casharadeenii biology secondary-ga. chapter-kan aan ku dhex jirnaa waa chapter-kii 7aad oo magaciisa la cytology. waliba qaybtan aan cashirkan ka duubaynaa waa qaybta 2aad ee biological molecules-ka. marka qaybta biological molecules-ka waxaynu ku dhex jirnay carbohydrates-ka oo groupka koobaad ah, molecular biological molecules-ka kuwa koobaad. carbohydrates-ka markaan kasii hadalnay waxaan usoo qaybinay classification-kii 3 qaybood. qaar waxaynu wax lahayn monosaccharides, qaarna wax lahayn disaccharides, qaarna wax lahayn polysaccharides. cashirkeenan oo cashirkii 2aad ah wuxuu ka hadlayaa monosaccharides. marka monosaccharidesku si magacooda ka muuqata, monona waa 1, saccharide na waa sonkor, oo micnaheedu tahay waa only one sugar, waa hal sonkor oo keliya, only one sugar. amba wax waa simple sugar, amba wax waa single sugar. marka carbohydrates-ka ka kooban sonkor keliya magaca la yiraahdaa monosaccharides. marka monosaccharidesku waa carbohydrates, waa kuwa nooc carbohydrates ka tirsan that consists of ka kooban single sugar, hal sonkor oo keliya. tusaalayaashoodan waan arki doonaa. monosaccharidesku classification bay leeyihiin, laakiin classification-kooda marka la qaybinayo criteria loo eegaa. marka we can classify, waynu qaybin karnaa monosaccharideska according to inaga u eegayna the following criteria. hanaankan iyo habkan soo socda lagu qaybinaya. waxaa jira monosaccharideska waxyaabo lagu kala saaro oo la yiraahdo waa marka koobaad carbonyl group. marka carbonyl groupkaasi waa carbon ay ku xiran tahay oxygen double bond ay ku xiran tahay carbonyl group. marka carbonyl groupkaasi meesha uu dhaco sonkoraha waa lagu kala saaraa monosaccharideska. yani meesha uu dhaco waxaan ujeednaa mar ma carbonka koowaad buu dhacaa, ma carbonka labaad buu dhacaa, saasaa loo eegaya. haddii haddaba carbonyl groupkaas oo ah carbonkaas double bondku uu ku xiran yahay haddii uu dhaco carbonka koobaad, waxaa la yidhahdaa waa aldose, sonkorta magaceeda, ama waxaa la yidhahdaa aldehyde sugar, ama waxaa la yidhahdaa sonkortaasi waxay ka kooban tahay aldehyde group. saddexdaaba waad isticmaali kartaa. oo carbonyl groupkii ayaa aldehyde group noqonaya markuu carbonka koobaad ku xiran yahay, markuu carbonka labaad ku xiran yahayna group kale noqonaya. marka aldose amba aldehyde sugar waa monosaccharide weeyaan, waa sonkor ka kooban only one sugar, carbohydrate ka kooban only one sugar that contains kaasoo ka kooban only one aldehyde group, hal aldehyde oo keliya, halka aldehyde oo keliyana uu ku xiran yahay carbonka koobaad. marka aldose sugarka ama aldehyde sugarka ama aldehyde group containing sugarku waa glucose. tusaale haddaynu soo qaadan location carbonyl group marka la eegayo sonkorta labaad waxa la yiraahdaa ketose, amba waxa la yiraahdaa CT hore oo kale halkii aldehyde sugarka ahayd ketone sugar, CT hore ay kala ahayd aldehyde group tan waxa la yiraahdaa ketone groupkaas oo ku xiran carbon 2. marka carbonyl groupku ma imikana ku xiran carbon 2 oo ku xiran, carbonkaas wuxuu noqonayaa carbonkii labaad, ka hore soo aragnana wuxuu ahaa carbonka koobaad. marka qaabkaas oo kale marka loo kala saarayo waxa la leeyahay location-ka carbonyl groupka lagu kala saaray. carbonyl group waxaynu ku sheegnay waxana waa carbon ay ku xiran tahay oxygen double bond. haddii carbonkaasi uu carbon koobaad noqdana waxa la yiraahdaa aldose sugar, haddii carbonkaasi ka labaad uu noqdana ay oxygentaasi ku xiran tahayna waxaa la oranayaa waa ketose sugar. marka ketose sugar waa maxay? waa monosaccharide that contains only one ketone group. ketone group micnaheedu waa maxay? waxa weeyaan waa carbonyl group ku xiran carbonka labaad. tusaale waxaan usoo qaadanaa sonkorta la yiraahdo fructose. halkaas location-ka laga eegaya. mar waxa laga eegayaa monosaccharideska marka la qaybinayo carbon skeletonka, yani carbonada isku xirxiran ee isdaba taxan size-koodu intee buu leeyahay. the size of the carbon skeleton, carbonkan skeletonadan isku xiran ee carbonada ma 3 carbon ma 4 ma 5 ma 6 ma 7.
carbon skeleton kuna which ranges from wuxuu ka bilaabmaa 3 wuxuuna ku dhamaadaa 7 carbon is long 7 carbon yani carbon skeleton kaasi range-ka ugu badan waa 3 to 7 3 to 7 carbon is long haddaynu bilowno haddaba kuwa ugu horeeya noqonaya kuwa ka kooban 3 carbon 3 carbons sonkor ahaan waxay noqonayaan glyceraldehyde sugar glyceraldehyde sugarku waxay leedahay 3 carbon sidaa daraadeed maadaama 3 carbon leedahay magaca tirada sheegaya ayaa loo bixiyaa magaca tirada sheegaya waxa la yidhahdaa triose mid baa jirta la yidhaahdo erythrose sonkorta la yidhaahdaa erythrose sugar waxay leedahay 4 carbons sidaa daraadeed maadaama 4 carbon leedahay magaca 4 sheegaya la raaciyaa tetrose oo tri waa 3 tetra waa 4 ribulose sugar baa jirta sonkor la yidhaahdo ribulose sugarna waxay leedahay 5 carbons sidaa daraadeed waxaa loogu yeedhaa iyadana pentose sugar baa la yidhahdaa sonkoraha caanka ah ee naqaano ee glucose iyo fructose iyo galactose sugars saddexdaas sonkoroodna waxay ka sameyn yihiin inay saddexduba leeyihiin 6 carbons yacni waxaa la yidhahdaa sonkoraha 6 carbon layaasha ah sidaa daraadeed magacooda waxaa la yidhahdaa hexoses sonkorta ugu dambeysa halkan xuseyno waxaa la yidhahdaa stereoheptulose sugar waa sonkor leh 7 carbons sidaa daraadeed waxaa la yidhahdaa heptose waa hept ayaa 7 ah heptosena waa sonkor leh 7 carbon marka classificationkii monosaccharideska mar waxaynu eegnay locationka carbonyl groupka marna waxaynu eegnay size of the carbon skeleton inagoo ka bilownay sonkor leh 3 carbon ilaa sonkor leh 7 carbon kaasina waa monosaccharideka iyo classificationkiisa haddaba monosaccharideskii sawirkana intii mukunbu inoo soo ururinayaa aldehyde sugar ama aldose sugar ama sonkor leh aldehyde group micnaheedu waxa weeyaan kaarboonada horta waa kuwa kaarboonkaasi wuxuu noqonayaa ka koobaad kaasi waa ka labaad kaasi waa ka saddexaad kaasi waa ka afraad shanaad lixaad haddaba kaarboonka koowaad imika maxaa ku xigan oxygen double bond halka casaanka la mariyey oxygen double bond maadaama uu ku xiran yahay waxay noqonaysaa aldehyde sugar groupka kani wuxuu noqonayaa carbonyl groupkani wuxuu noqonayaa aldehyde group ama waxaa la yidhahdaa aldose sugar kani waa ketone sugarkii ama waa ketostii waxay leedahay ketone groupka ku dhacay kaarboonka labaad kaarboonka labaad buu ku xiran yahay kaarboonkii lahaa oxygenta double bondka lahaa sidaa daraadeed kana waa ketose sugar ama waxay leedahay ketose ama waxay leedahay ketone group laakiin ketone groupka iyo aldehyde groupka labadaba waxaa la isku dhahdaa carbonyl group oo dee waa carbon oxygen double bond ku xirantay labaduba laakiin halka u dhacay kaarboonka u dhacay bay ku kala duwan marka kaarboonka ay dhaceen ayaa magaca u kala duwaya iyagoo si guud u ah carbonyl group ayaa haddana carbonyl groupkii positionka ay dhaceen magac kale loogu bixinayayo kana xala aldehyde group kana xala ketone group sonkortana xala ketose sugar ama aldehyde sugar ama aldose ama ketose xaggii tirada markaan eegno sonkortani waxay ka kooban tahay mise carbon waxay ka kooban tahay 3 carbon sidaa daraadeed waxaa odhanayaa waa triose tani mise ka kooban tahay 1 2 3 4 5 carbon sidaa daraadeed waxaa odhanayaa waa pentose waaya sonkortani mise ka kooban tahay 1 2 3 4 5 6 carbon sidaa daraadeed waxay noqonaysaa hexose markaas sonkortani waa fructose tani waa ribulose tani waa dihydroxyacetone glucose la kala jabiyo oo waxa ugu horeeya soo baxa glucose maadaama 6 carbon leedahay marka la kala jabiyo waxa soo baxa sonkor leh 3 carbon laba sonkorood oo leh 3 carbon marka tirada waa 3 tani tanna waa 5 tanna waa 6 markaasina intaas un bayn uga baahnay in aldehyde sugar ama aldehyde groupka iyo ketone groupka kala fahanto sidoo kale inaad kala fahanto xagga tirada haddaynu markaa kuwan eegno muxuu ahayey kaarboonka labaad ee carbonyl groupka ku xiran yahay labadan keebay raacayaan ma aldehyde sugarkay raacayaan mise ketone sugarka ayay raacayaan
maadaama kaarboonka labaad ku xiran yihiin waxay wada raacayaan ketone sugarka ama ketose bay noqonayaan ama waxay leeyihiin baan odhanaa ketone group inagoo tixraacayna kaarboonka ay ku xiran yihiin xagga tirada laakiin mida tris bay nidhi mid pentose bay nidhi hexose 3 kaarboonley 5 kaarboonley 6 kaarboonley monosaccharideska baynu ku jirnaa weli monosaccharideska waxaynu kasoo qaadanaa haddaba groupka ugu caansan uguna fiican sokorahan tusaalahoodana oo noqonaya hexoses marka waa tusaalayaasha ugu wanaagsan ee monosaccharideska lasoo qaato hexosesku maxay ahaayeen waxay sokore leh 6 kaarboonley bay ahaayeen waxaa ka mid ah sokorta la glucose waxaa ka mid ah sokorta la fructose waxaa la sokorta la galactose haddaba xagee laga helaa mid walba sokorta la yidhaahdo glucose found waxaa laga helaa in every living cells unug kastoo nool and its used waxaa loo isticmaalaa source of energy tamar ahaan baa loo isticmaalaa fructose halkee laga helaa iyada waa sokorta ugu macaan baa la yidhahdaa fruitiska laga helaa waxaa loo isticmaalaa sweet agents ayaa wax lagu macaaneeya ayaa loo isticmaalaa galactose waxaa laga helaa iyada in milk caanaha laga helaa and its used waxaa loo isticmaalaa to synthesis in la sameeyo other molecules walxa kale in laga sameeyo like sida lipids in dufan ama dux laga sameeyo oo inaga caanaha dee duxda ka saarnaa ama subaga ka sameyna in aqueous solution hadda marka la joogo milan marka la joogo biyo lagu qaso sonkorta glucose waxay sameysaa two ring structures laba structure ama laba qaab isbedelaysa la sameysaa labada qaab biseed mid waxa la alpha mid waxa la beta marka waxa jiraan leenahay glucose laba nooc laba form labada form mid la alpha glucose iyo mid la beta glucose with an intermediate straight chain form kaasoo leh straight chain ku waa chain ama waa silsilad toosan aan ring ahayn marka inta ring formka waxaa la yidhaahdaa labadooduba way sameynayaan waxaan ka wadaa straight chainkana way sameynayaan intermediate-ka ring formkana way sameynayaan hadda maxaa farqiga labadooda u dhexeeya alphada iyo beta formka alpha form and beta form differ in location waxay ku kala duwan yihiin locationka of one OH group hal OH group ayuunbay ku kala duwan yihiinoo isu daba marsan yacni looma jeeda hal OH baa midkood ka maqan midna waxaa kala maqnaa tirada oxygenada tirada kaarboonada tirada hydrogen waxa waa iskaga mid oo dhammaantood waxay leeyihiin 6 hydrogen waxaa ka wada dhammaantood waxay leeyihiin 6 kaarboon waxay leeyihiin 12 hydrogen iyo 6 oxygen ay dhammaantood leeyihiin xaggaa way ka siman laakiin OH positionka uu dhaco OH hal OH waliba one OH dhowr ay leeyihiin one OH group halku dhaco ay ku kala duwan maadaama haddaba molecular ahaan ay isku mid yihiin laakiin structural formula ay ku kala duwan yihiin waxaa la yiraahdaa molecule kasta ama molecules kasta oo leh same molecular formula iskaga mid ah sida tan imika oo kale glucose alfadu 6 bay leedahay hydrogenadana 12 bay leedahay oxygenana waxay leedahay 6 waa alfada betaduna waa la midun 6 kaarboon bay leedahay 12 hydrogen marka molecular formula waa iskaga mid laakiin marka la structure ahaan sawira structure-kiiba wax ku kala duwan yihiin oo OH-kaas meesha uu ku xiran yahay ayaa si yar daba marsan saddex waxaa la molecular la same molecular formula but different structural formula laakiin structural formula ku kala duwan waxa la yiraahdaa isomers kaasna waxa tusaale u ah two forms of glucose labada nooc ee glucose sawirkan eegina marka sawirkan eeg labada glucose waa alpha glucose tan waa beta glucose halka waa iskaga mid oo arkaysa hydrogentas iyo OH-kaas caamrsan waa iskaga mid way hydrogenta kale ee halka waa iskaga mid OH-ka iyo hydrogenta gudaha ku jirta waa iskaga mid hydrogenta gudaha ku jirta iyo hydrogenta kale waa iskaga mid OH-ka iyo OH-ka waa iskaga mid haddaba halkan u fiirso kaarboonka buu fiirso xagga sare waxaa ku xiran alpha glucose hydrogen tan waxaa ku xiran OH oo ka farqo xaggan hoose kan OH baa ku xiran kan hydrogen marka
halkaas bay ku kala duwan yihiin maadaama halkaa ku kala duwan yihiin waxa koona waa iskaga mid marka farqigu bartaas ayuu ka imanaya sidaa daraadeed baa tan loo yidhi alpha tan loo yidhi beta sawirka marka inta ka hor soo sawirto alfada OH xagga hore u marsiin alpha glucose baranay hadda rasmin xagga hoose hydrogen tusaanana waa beta glucose farqigu waa intaas marka alpha and beta glucose ring structures these two interconvertible forms of glucose labada nooc ee glucose la isku bedeli karo in the place differ waxay ku kala duwan the placement of hydroxyl group halka uu dhaco hydroxyl group marka highlighted in blue baa la saaray waa lagu yiri attached to the number 1 carbon waa kuwa ku xidhan carbonka koobaad marka kuwa kala duwan way monosaccharides have these properties astaamahan ay leeyihiin astaamaha leeyihiin waxaa kamid ah way sweetened taste waa macaan the glucose fructose galactose dhammaantood waa macaan general formula leeyihiin general formulada waxaa leedahay CH2 halkaas yara dhex galay hoos xagga hoos u yaalay hydrogen hoos yaala kana waxa ka saaran N marka doonayso nooca sonkora doonayso la soo baxdo tirada kaarboonada baad N ku bedelanaysa tusaale waxaan yiri skeleton koodu wuxuu dhaxeeyaa 3 to 7 monosaccharides markaan sheegnay size xaggaas tirada inta u dhaxaysa ku bedel halkaan haddaan 3 ku bedelo the 3 ku dhufo kaarboonka waxaa noqonaysaa 3 kaarboon hydrogen marka hore 2 bay haysatay xagga hoose ku haysatay 2 ga 3 ga ku dhufo 6 buu noqonayaa oxygen waxa may haysan wax ka dhiganta halba u qarsoon 3 ku dhufo waa 3 sidoo waxay noo soo baxay sokortaas la yiraahdo triose markaan qaacidada marinay haddii isla halkaas aynu gelino 6 gelino 6 oo 6 isticmaalno si coinka shakin hexes oo kale waxay noqonayaan 6 carbon hydrogen waxay noqonaysaa 2 bay haystay 6 ku dhufo 12 oxygen hal bay haystay 6 ku dhufo C6H12 of 6 qaacidadaasi wadaaga dhamaantood they are wet crystalline solids sonkorahani waa sonkor jiriid ah cadaan ah oo adka ah marka naga aragna waata sonkorta daciifka they are soluble in water biyahana way ku milmaan astaamahaasna way leeyihiin monosaccharides halka monosaccharides kan kaga soo baxnay groupka labaad baan halkan ku eegnay disaccharideska disaccharides macnaheedu waxa weeyaan waa two sugars di 2 bay u taagan tahay saccharidesna sonkor bay u taagan tahay marka waxa weeyaan waa carbohydrate ku kooban laba sonkorood marka disaccharides waa carbohydrate that consists of kooban two monosaccharides laba monosaccharide bay ka kooban yihiin joined by waxaana isu xiray covalent bond leedahay glycosidic bond dabarkaas isu haya glycosidic bond kala leedahay glycosidic bond kan inta badan wuxuu ka sameysmaa dabar oxygen ah oo labada monosaccharide isu haya marka disaccharidesku xagga propertieska waxay same properties leeyihiin monosaccharides macnaheedu tahay waa macaan waa yahay waa white crystalline solids waa soluble in water waxa soo dhow la wadaaga laakiin maxay kaga duwan yihiin except the formula qaacidada kaga duwan yihiin iyagu waxay leeyihiin they have the general formula qaacida guud bay leeyihiin oo ah kaarboonka halkaas intaalo oo tirada kaarboonada lagu dhufanayo markaan H2 ba hoos yaala markaan tirada kaarboonada la dhigaya -1 original formula sili iyaguna sidii horun baa halka lagu dabaqaya oo lagu bedelaya tirada kaarboonada marka laba monosaccharide markaan isku darno two monosaccharides hadii la isku daro imisa kaarboon bay yeelanayaan 12 hadii marka halka 12 lagu bedelo enta waxay noqonaysaa 12 kaarboon xagga hoose inoo soo dhig enta kala hadii 12 ku bedelana waxay noo soo haraya 12 baa inoo soo haray 12 ka 2 ga ku dhufo hydrogen la socda hydrogenadii waxay noqonayaan hydrogenada waxay noqonayaan 2 marka 12 lagu dhufto waa 20 oxygenadii waxa la meesay markii hore 12 ku dhufo marka 12 kaarboon 20 hydrogen iyo 12 oxygen baa soo baxay sida caadiga hadii laba monosaccharide isku xidhnana dee midkiiba wuxuu lahaa kaarboonadiis 6 bay ahaayeen
hydrogenada 12 bay ahaayeen oxygentuna 6 bay ahayd laba noocaas haddaan isku darno waxaa noo soo bixi lahaa carbon 12 hydrogenada waxay noqon lahaayeen dee 24 oxygenada waxay noqon lahaayeen 12 way marka 12 iyo 4 marka imika tan aan soo saaray laakiin aan 11 bay noqotay mid baa maqan marka 22 bay noqotay laba maqan labada ay markaas xagee tigeen labada hydrogen iyo daxbas waxay tigeen meesha waniga biyo ka saarnay marka labada isu geynay monosaccharide biyo ka bixi jiray biyaas maxay saari jireen laba hydrogen kale ka maqan iyo xabad oxygen tan aan ka maqan taana saas aynu fahmaynaa marka tusaalayaasha monosaccharide disaccharides ugu caansan waxaa kamid ah maltose waa disaccharide ka timi haddii la isku xiro laba molecule glucose yani laba monosaccharide waa nigani baa la isku xiraya labadii monosaccharide maxay noqdeen maltose sameeyey glucose bay noqdeen maltose magaca kale la yiraahdo malt sugar waana sonkor loo isticmaalo in shaaha lagu darsado si as a table sugar way wax lagu macaaneeyo miiska la saarto waxaa timi sonkorta labaad waxa la yiraahdaa sucrose idan waa disaccharide waa sonkor laba sonkorood ka kooban followed by the connection of the monomers idana waxa isku xidhmaya tii hore laba glucose bay talaan kuwii ka yarduwanta glucose waa xabada kale fructose bay noqonaysaa glucose fructose hadii la isku xidho waxay noqonaysaa sucrose waxa la yiraahdaa waa monosaccharide waxaan ka wada waa disaccharide lagu helitaanka badan yahay sucrose-ku is the most prevalent disaccharide waa disaccharide lagu helitaanka badan yahay marka sucrose-ku waa sonkorta aan shaaha ku darsano shaaha caadiga aan ku darsano la yiraahdo sucrose waana sonkorta ugu isticmaalka badan leh marka sukraha loo eegayo hadda plants-ka dhirtu generally transport carbohydrates way gaadhi yani carbohydrates markay sameeyaan caleemaha ku sameeyaan way soo qaadaan qaybaha kale ee geedka ayaa la geeyaa markaas marka lagu kaydiyaa from leaves waxa laga keenaa caleemaha roots waxa la keenaa xididada and other non-photosynthetic organisms iyo xubnaha kale aan photosynthesis ka dhicin way photosynthesis the leaves kuma ka dhacaa in the form of sucrose deedna waxa la keenaa iyadoo sucrose kadibna sucrose hadhowto waa la bedelaya waa la kaydinaya waxa laga dhigaya starch sonkorta kale waa lactose waa disaccharide kale another disaccharide formed glucose molecule joined to a galactose molecule waa glucose iyo galactose saddexdii monosaccharide ee ugu caansan ee commonka ahaa ee hexose-ka ahaa 6 carbonate ahaa ee glucose iyo fructose iyo galactose ayaa inta ugu badan disaccharide kana laga sameeyaa marka haddana saddexdaasi xagga isticmaalka si kala badan waxa ugu badan glucose eegta ugu horeysa ee uu bixinay maltose glucose lamina glucose bay ka kooban tahay sucrose maxay ka kooban tahay glucose iyo fructose halkana glucose ku jirta lactose maxay ka kooban tahay glucose iyo galactose halkana glucose ku jirta tan ugu dambaysa lactose waa maxay it's the sugar waa sonkorta present in milk caanaha laga helo ama caanaha ku jirta kaasina waa disaccharides aan soo aragnay monosaccharide iyo disaccharide marka labaad bartaas ku joogaya cashirka xiga inta ku kulmayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi